munaasabad aad iyo aad loo soo agaasimay kana dhacday xaafadda Wembley ee magaalada London ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka Horseed Mudane Maxamed Xasan Sheekh Muumin iyo marwadiisa. Munaasabada ayaa waxaa soo qaban qaabiyay taageerayaasha urur siyaasadeedka Horseed ee ku dhaqan magaalada London iyo nawaaxigeeda. munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin cuqaal waxgarad iyo aqoon-yahano iskaga kala yimi magaalada London iyo nawaaxigeeda. sidoo kale halkaa waxaa lagu xusay gudoomiyaha urur siyaasadeedka Horseed Mudane Cabdullaahi Darawal taariikhdiisii dheereed ee halgan ee waxqabad ee Jamhuuriyadda Somaliland. hadaladoodiina waxaa ka mid ah sida tan. waxaan celinayaa dadka soo qaban qaabiya xafladan oo ay dumarku ugu horeeyaan iyo dhalinyarada. waxaan jecelahay in aan ku soo dhaweeyo marka hore Maxamed Salabaan Jirdaaw Cali. maanta waa maalin qaaliya oo halkan ugu dabaaldegayno ururkii Horseed. farxad weyn bay noo tahay. kolley xafladu way sii soconayaan waa bilowgii in badan oo aan wada doonaa insha Allah. gudoomiye ku-xigeenka waliba saaxiibkay ma sha Allah waxaan ku farxaa weey ilaahay waxaan uga baryayaa in hoggaanka ugu sareeya ay gaaraan dadkana hoggaamiyaan annaguna aan la shaqeyno. bismillahir rahmaanir rahiim. alxamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala sayyidil mursaliin wa ala alihi wa asxaabihi ajmaciin. amma ba'd. marka hore ilaahay baa mahadle inuu kulansiiyey xafladan aynu ku soo dhaweynayno gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka Horseed waa Maxamed Xasan Sheekh Muumin. haddii aan in yar ka sheekeeyo Maxamed waa nin akhlaaqdiisa inta ilaahay bilaadan siiyey u dhammaystiray weeyi. waa sheekh waxa weeye waa siyaasi waxa weeye waa abwaan Allahumma xuseen sidii aabihii iyo aqoon-yahan waa kida jaamacadaba muxuu ahaa jaamacadaha Soomaaliland wakiilka agaasima ka ahaa. marka waa nin aan filayo booska maanta uu fadhiistay hadduu ilaahay ku guuleeyo ana u baryaa inuu ilaahay ku guuleeyo inuu ka soo baxayo. marka hore waxaan leeyahay horta Somaliland hambaliyo 18 weli waa sii muuqata 18 May weli ma dhammaan hambaliyadii iyo dabaaldegii weli waynu ku jiraa. marka ilaahayna waxaan uga baryaynaa waqti wanaagsan in ku dambeyn doonto. waxaa kaloo halkan uga dareynaa baaq in ilaahay dagaalada ayakana inaga qaboojiyo iyo xasarada meesha ka taagan. xukuumaduna inay xal keento oo hawshaasi naga dhamaato insha Allah. hadalka uma kicin in khudbad dheer jeediyo laakiin waxaan erey ka oranayaa Maxamed Xasan Sheekh Muumin oo muddo dheer isnaqaanay. Soomaalidu waxay ku maamaadaa rag laba u daran nin taagan oo la tirin iyo nin tagay oo aan la tabin. halkan markuu naga tagay aad baan u tabnay intan diin ka bartay isaga waxay ugu dambeysay macallinkii quraanka intan diin isaga ka bartay. digan ururkan Horseed waxa weeye waa garanaysan Cabdullaahi Darawal iyo Maxamed oo soo raacay. ya maxaa kale ku sheegi karaa labada shakhsiyadood meesha mariya. marka in la dhiirigeliyo oo aynu ururadeenna dhiirigelino kana saaro. laakiin waa soo dhaweynaynaa isaga iyo inta la socotaba insha Allah waxaanu rajaynaynaa ilaahayna inuu u fududeeyo sida ay uga mid noqon lahaayeen hoggaanka dalka iyo dadweynaha sharafta leh ee isugu yimi taageerada xisbiga siyaasadeedka Horseed. gudoomiyahana waan salaamayaa marwadiisa iyo marwadii gudoomiyaha urur siyaasadeedka Horseed iyaguna fadhiya meesha dhammaantood dadweynaha wada salaamay horta. waa mahadnaqon baan kolley anigu oranayaa waan ku faraxsanahay. ilaahay insha Allah bismillaahi karim waxaan
كرجيني إنه نقض حسبنا كدلك هو جامية إلهي نبتقليدنا هاي نوع كيو إلهي على يدي باتوين كتاعنا هاي نقدر قاضي ومدعين ندت كني دل كني نادي أدبر كم هذا علينا دورت كل هول بدن بينات طالو إمك وابلو إمك وايس برشديني لكن إن شاء الله أورك دافور كيسي باسا صعلا halkaas hawl badan ka soo baxaysa dad badan oo fara badan oo reer Soomaaliland maanta in badan baa dad shacabka u garaacnay hadda anaga naloo garaacaya marka annagoo waliba saaxiib ah maxamed oo aad iyo aad saaxiib u ah muddo badan oo wada soconay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya ka soo qaybgalka aan ka soo qaybgalay waliba anigu xafladan iyada ilaahay wixii dhibaato ah ee wadankeena haysta ilaahay inaga qaboojiyo taasi waa to ugu muhiimsan urka horseed mustaqbalka insha Allah taala kamidna qoraya saddexda xusbi qaran ee ka soo baxaya jamhuuriyadda Soomaaliland rajo weyn shacabka Soomaaliland oo ku qabo biidnillaahi kariim dhammaan jamhuurka halkan isugu yimid taageerayaashiisa aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan ku salaamayaa tahiyatul islaam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوق من قابيه شركا أي لكسر لوين إنه مدحوين كحجين كمستقبل كجمهورية الصومال محمد شيخ حسن مؤمن وقوم هذا نقيا وعن له قرب كينا ونهاي أنا قولنا نشوفنا فران لاين كان يدخل شرنا إذا ما ذكرنا كجمهورية الصومال هيجن كواه دفاع قرن كجمهورية الصومال هذه هبنا وتاجن وحان الله يهاي والله قربكينا نتاجنه. dalkana meeshii laga soo bilaabay waxa hogaamin kara waxa weeye qof garanaya halku ka soo bilaabay oo la xajaalo ka qaba waxaan idin xusuusin karaa mujaahid Cabdilaahi Xuseen Iimaan dadku waa mujaahid u beedhada laakiin saddex marxaladood oo Soomaaliland soo martay saddexdaba uu kala soo dabaashay wuxuu haanin halgankii qaraara hormoodu ahaa oo u soo dagaalamay qabashadii dalkan hormoodu ahaa wuxuu ahaa nin ka soo qayb qaatay nabadeyntii isaga la'aantiina haddii aanu hogaaminaynin wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladdii xilligaa jirtay dagaalo badan oo sokeeyo dalka ka dhacay may suurto gasheen haddii aanu Cabdilaahi ahayn ka fahmaya sida ragga isu soo horjeeda loola hadlayo oo mujaahidiintiisa ahaa tasaddexaadna waxay ahayd dibadejintii dalka waayo dal burburay oo qaxoonti laga soo noqday ayuu Cabdilaahi waxa loo dhiibay wasaaradii dibadejinta waan ku farxay runtii markii la yiri gudoomiye ku-xigeenka warsiyaadka horseed weeye moogta si kalena waxbaan isku nahayo Xasan Sheekh Muumin isku family baan hayraa inta markay ka gudbo anigu waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye UK xisbiga kulmiyana waxa ka go'an oo mar walba ka go'an in dimuqraadiyadaasi xoogaysato oo fido oo 10 sano mar la qabto inuu rado furmaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن آدي آد فرصة دي كفر حسين الله يدي كفر حيو يعني قبل قابضة أتسيد ولا أحسن سوء أجاسنتين ولي بدأ الدبر كوه وجوه رجال ذلك الدبر كواحد قاعد يرسي بركة دول كيلتو يخرج بعد وصل ده الشيء السيد لو وصل دويل لهيدين evaluation isbedel oo sameeyay waxaan arkay inuu ninka kaliya يعني ummad inta lagu hogaamiyo leh ummad inta lagu hogaamiyo nin leh waa nin xishooda waa nin wax loo sheegi karo waa nin la oran karo waad qaldan tahay waa nin la waanin karo madaxda Afrikana waa taqaanaan badi waxay u badan yihiin ragad waxba u sheegi marka talabaad ee ma ogtahay aan ku raacayna yani intii dibadda ka timi oo Canada iyo u badan Mareykan oo intayadii de waxbaratay dibadda ka timi oo meel wada joogtay oo min ceerigaabo ilaa iyo ma ogtahay la yacada ayaa waxay yiraahdeen ninka markaan la soo shaqeynay waa ninka nagu yiri waa nin aan askari baan ahay ka aqoontii haye wax wada haddana de dagaalku waa bilow wali waa 13 urur dagaalka ku jirnay
waa sidaan u noqon lahayd ma ogtahay dee saddexda soo bixi doona siduu sheegay professor xariir dee mar baan cigaal u baahnayn waddanka qofii loo dejiya mar baan walaalayn u baahnayn rayaale mar siday u soo socoto hadda waa kii kaleen u baahnayn hadda ee caqabadaha inaga saari lahaa cabdiraxmaan shaqale Home Cable TV magaalada London.